waanu wanaagsan daawadeel halkan waa warbaahinta Barawa News qodobada maanta Barawa News warkeedin ku haysta waxa kamid ah daawadayaal dawladda Mareykanka ayaa madaxweynaha wadanka Venezuela ku soo oogtay dacwado ku saabsan argagixisnimo dhinaca daroogada ah iyo dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda waxbarashada ayaa iyaduna ku dhawaaqday iskuulkii sare 15 May inay gabi ahaanba la wareegayso wasaaradda gaadiidka dawladda federaalka Soomaaliya iyaduna sheegtay inay gabi ahaanba dawladnimadii dalka gudihiisa laga duuli jiray gidaabana la joojiyay intaas iyo kuwa kale ayaa warkeedin kugu haynaa daawadayaal ku soo dhawaada warkayni oo fidsan kulanti wanaagsan waa maalin sabti taariikhdu ay ku beegantahay 28 bisha Maajo 2020 dawladda Mareykanka ayaa madaxweynaha wadankaas Venezuela ku soo oogtay dacwada ku saabsan argagixisnimo dhinaca daroogada ah Mareykanka ayaa dacwada ku soo oogay madaxweynaha wadankaas Venezuela Nicolas Maduro iyo saraakiil sare u dhashay wadanka Venezuela kuwaas oo ku tilmaamay inay yihiin argagixisnimo dhinaca daroogada ah siyaasiyiintan oo Mareykanku ku eedeeyay inay dalkiisa ku xarqiyeen daroogo iyo waxyaabo kale oo dadweynaha Mareykanka caafimaadkooda ka dhan ah dacwadoogaha guud ee wadanka qaranka Mareykanka William Spar abaalmarin lacageed oo gaaraysa 15 milyan oo dollar ilaa 25 milyan ayaa laga ballan qaaday qofkii keena xog horseedaysa in la soo xiro Mr. Maduro tilaabadan ay Mareykanku qaadeen ayaa sii xoojinaysa xiisadda u dhaxaysa labada dal Mareykanka iyo Venezuela xukuumadda Washington ayaa in badan ku eedeysay madaxweynaha wadankaas Venezuela inuu horkacayo waxay ugu yeertay xukuumadda musuqmaasuq iyo arxan darro ku dhisan idoo arrintaas dawladda Mr. Maduro marar badan gaashaanka u daruurtay wuxuu Mareykanka ku taageeray hogaamiyaha mucaaradka dalkaas Venezuela oo asigu iskiis ugu magacaabay inuu yahay madaxweynaha wadankaas ee ku meel gaarka dacwadahan ayaa imaanaya kadib markii cadaadis xooggan oo Mareykanku saaray Mr. Maduro asigoo horaan uu soo rogay cunaqabatayn ka dhan ah wax soo saarka saliideed ee dalkaas Venezuela markii laga soo tago Mr. Maduro Mareykanku wuxuu dacwada noocan ku soo oogay in ka badan 10 kamid ah saraakiisha sarsare ee wadankaas waxa saraakiishaas kamid ah wasiirka gaashaandhigga dalkaas iyo madaxa cadaaladda iyo maxkamadda ugu sareysa wadankaas wasiirka arrimaha dibadda dalka Venezuela ayaa isaguna ka jawaabay hadalka ka soo baxay Mareykanka ayaa gaashaanka u daruuray wax kama jiraan ku tilmaamay eedeynta Mareykanka oo eedeeyay Venezuela wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u la wareegayso dugsigii sare ee 15 May ay gacanta ku hayeen ergada waxbarashada Masaarida ay dugsigaas waxay gacanta ku hayeen intii u dhaxaysay 2015 markii ilaa hadda markii maamulka lagu wareejiyay wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo sheegay in loo baahan yahay iskuulkaas laguna bedelayo dugsi tababareed oo macallimiinta gabdhaha kaasoo soo saari doona hablaha macallimiinta ka noqon doona dugsiyada hoose iyo dhexe ee wadanka wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa wareysi u siiyay warbaahinta wax kama jiraan ku tilmaamay warar sheegaya bulshada ku qoreen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka federaalka Soomaaliya kuwaas oo sheegay inay sababta dawladdu u xirtay dugsiga 15 May ay ahayd amar ka soo baxay dawladda Itoobiya dhanka kale wasaaradda gaadiidka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyaduna ku dhawaaqday gabi ahaanba in la joojiyo isaga gooshidii dalka gudihiisa taasoo loo aaneynayo cudurka dhibaatada baahan ku haya dunida ee coronavirus wadabadii oo warkii oo ninkugu hayna waa naga intaas daawadayaal dhinaca farsamada waxaa noo fadhiya engineer Saki anigoo Cabdiraxmaan hadalka ayaan idin soo siinayay faafinta warka waa xaqiina sidaas iyo nabadgelyo daawadayaal